qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka beesha Gubadley ayaa maanta waxay yeesheen kulan ay ku taageerayeen barnaamijyada dib u dhiska deegaanka, amniga, maamulka iyo xaqiijinta soodimaha rasmiga ah ee qaab sharci uu u leeyahay deegaanka beesha Gubadley. waxaana kulankaasi uu ka dhacay isla deegaankaas oo ka tirsan gobolka Banaadir. xubnihii goobta ka hadlay ayaa waxay sheegeen in ay soo baxeen shakhsiyaad doonaya in ay dhulboob sameeyaan isla markaasina ay isku ballaariyaan deegaankooda, iyaga oo soo macmalay warqado been abuur ah oo ay ku tilmaameen in ay yihiin lahaanshiyaha dhulka beesha Gubadleyna aysan doonaynin marnana aysan aqbalaynin in lagu sameeyo xadgudub, iyada oo ah deegaan qaatay magaca beesha Gubadley ku dhawaad 40 sannadood ka hor ayna aqoonsatay dowladdii kacaanka ee Soomaaliya. haddana uu yahay deegaankaasi deegaan si toos ah u hoos taga maamulka gobolka Banaadir. mas-uuliyiintii goobtaasi ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdulaahi Axmed Maxamed Cabdulaahi Dheere oo ah mas-uul u dooda xuquuqda deegaanka, Axmed Maxamed Macluw oo ah oday 74 jir ah isla markaana ah dadka asalka ah ee deegaanka kuna dhashay deegaankaas, iyo Cali Nuur Gaafo oo ka mid ah dadkii dowladdii kacaanku ay soo dejisay horaantii 80meeyadii loona cabiray dhulkaas. beriyahan wax meediyaha ka muuqday oo dad is abaabulay oo dad carqalad wata ah oo dukumeenti maryahabaaba wata oo carqaladay haya deegaankan beesha Gubadley oo ka yimid degmada Huruwaay dukumeenti laga soo qaaday oo loo soo qaaday deegaankan iyo goofahan lagu carqaladay haya. meeshaan waa Gubadley, waa Gubadley beesha Gubadley waaye dadkii asal ahaan goof ahaan u lahayna waa kuwana dadkana iskale asal ahaan goof ahaan u leh. sharciga dhulka lagu maamulo waa xeer madaxweyne soo baxay 84 dadkii dhulka iska lahayo laga heshiiyahay waa kuwana dad maryahabaaba oo dukumeentiyaal la soo gurgubiyay 83 meeshan 83 cabirkeeda meeshuu yahay anaga waa naqana yaanan la jahawareerin fidinta magaalada yaan carqalad lagu naqan yaan amnigan deegaankan Gubadley la carqaladaynin. carqalad qof cid aan ka yeelayno ma jirto, carqalad ma yeelayno, waa ka soo horjeednaa saan wax garad u nahay, saan ganacsato u leenahay, saan siyaasiyiinta u leenahay hodhan oo meeshan annagu ma ogolin deegaankan amniga oo habeenkii iyo maalintii ay isugu mid tahay amni ahaanteeda. dadkii ka shaqeeyay in la ijaafeeyo, saraakiishii ka shaqeysay iyo ganacsatadii dhulkan maal gelisay annagu ma aqbalayno in la ijaafeeyo. taasi waa magaalada yaan la hormarin, yaan dhulka la deegaamin. waxaa laga baneeyay geedo waaweyn oo mataqaana dowladaha laga baneeyay. meeshaan ma waxay ahayd meel dukumeenti ma ahayd, waa jirjir iyo jaho ninkaana jahadiisa tahay jirjirkiisa tahay asagaa iskale. 40 minaaradood ayuu kama sukay dukumeenti waxar cad meeshaas waay waxar cad meeshii loo yaqiin iyo Huruwaay waa deegaankaas. Huruwaay deegaankeeda waa deegaan waan too dhismay. meeshaana waa meel curdina, waa degmo curdina ee beesha Gubadley ay leedahay waay. curdinkaas marka in la carqaladay curdinkaas in madax laga kubsho ma aqbalayna madax kubiskeeda. waxaan dawladda u diraynaa baaq gobernatoro waxaan u diraynaa inuu dukumeentiyadaas maryahabowga oo wax ka qabto. waxaan kaloo baaq u diraynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka war bulshada dukumeentiyadan lagu carqaladay oo cabdilashadeeyada ha laga qabto ummadda. dhulkaanna wuxuu ka fili lahayaa waa cabdilashadeeyaas. war dawladda waxaa ka daran halka qoriga wata amni darrada wada kan dukumeentiga deegaanka u carqaladay ka daran waa in la ka qabtaa. war magaalada meel kasta oo la noolay tago waa in rogan nimanka waa niman group oo la ogyahay oo meeshay ka socdaan iyo dadka yihiin aan garanayn. ninkaan ayaa iskale Axmed Deeya la yiraahdo goofka asaga iskale ninka goofka lahayo intaasoo sanad deganayna asaga waay. waxaan rabaa ganacsatadii dhulka nooleysay waa u mahad ceeyahay oo ku jiro Xaaji Cabdi Adduunyo, Cabdullaahi Maxamed Jimcaal oo ku jiro, Ibraahim Axmed Maxamed ku jiro, waa ganacsatadii dhulkan nooleysay oo saan ka dhigto buuray ahayd meesha. marka ninkii xoolihiisa meeshan galishay in la carqaladeeyo ma carqaladaas waxaan meegan u nahay dawladda. meeshan sargaalkan Sani Cabdullaahi la yiraahdo waa ninkii dhulkan nooleeyay oo deegaamiyay oo qurxiyay. mahad celi oo amnigan ka shaqeeyay. amnigan hadda aan ku joogtin war cid ilaahay shamiya jira waa maya. amnigan ninkii ka shaqeeyay in la ijaafeeyo waa sargaal dawladeed ee meeshan nasiib bilbaati ugu shaqeeyay dadkiisa degan ku dhashay. nin duurka ugu yimid ma
waxaan rabnaa inaad dowlad dadkaas fidno wadayaasha in dowladdu naga qabato haddii kale annaga waa iska qaban karnaa laakiin sharcigaan dhowrayna